sanad guuradii 27aad ee asaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta laga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadda xuska ciidanka qaranka Soomaaliland oo ka qabsoontay xarunta qaybta 12aad ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xayd, maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka Soomaaliland. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay abaanduulaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland Kayd Cismaan iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka Soomaaliland iyagoo ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ciidamada qaranka Soomaaliland. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in Ilaahay sanad guuradeeda uu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo guul iyo horumar hawsha ay u hayaan qaranka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranku in Ilaahay ku guuleeyo ilaahay fududeeyo. waxaynu ogsoonahay sanad guurada maanta aynu marayno 27aad oo marxalado kala duwan ciidanka qaranku uu soo maray uu ku soo gaaray halkaa duruufo adag oo nololeed, mid dagaal, mid hawlgal, mid difaac, duruufo aad iyo aad u fara badan ciidanka qaranku ku soo maray. maantana uu marayo marxaladii ugu wanaagsanayd, hadday tahay dishibliin, hadday tahay akhlaaq, hadday tahay geesinimo, hadday tahay maxaan ku dhahdaa difaac dal, hadday tahay dulqaadasho, inuu yahay ciidanka qaranku hay'adda ugu culus ee intaas oo dhan guudka ku sidata waa lafdhabarta qarankeena ciidanka qaranku. inaad daacadnimo iyo xilkasnimo ku shaqaysaan oo qof walba halkaad joogto daacadnimo ilaahayna ka boqdaan oo dadku uu dadkiini meeshii aad joogtaan bayna daacadnimo iyo xilkasnimo ku shaqaysaan. tacabkii ay yimaadeen aynu soo galay waxaan idinku boorinayaa inaad ku dartaan waxbarashada sharciga, kala dambeynta inaad ku dartaan ayaa loo baahan yahay. maanta annagu tanala gudboon waxa weeye laba qodob hambalyo aanu idiin hambalyayno haddaad tihiin dhammaan ciidanka qaranka iyo xaasaskooda, iyo haddii ilaahay idmo inaynu garbaas haysanno sida quruxda badan ee ciidanka qaranku uu uga howlgalo Jamhuuriyadda Soomaaliland. guulo badan bay ku soo hoyeen ciidanku, lamana koobi karo inta ay dhisnaayeen guulaha ay soo hoyeen. waxaan leeyahay hambalyo waajibaadkii la diisaano aad ka soo baxdo oo keentay sanad guurada isaba socodkan iyo garaadadina howlahan aad iyo aad baan idigu hambalyaynaya. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xayd iyo maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyagoo hambalyo u diray ciidamada qaranka Soomaaliland, sidoo kalena dardaarino kala duwan la wadaagay. waxaan ku dardaarmay qaranka xilkiisa idin saaran xagga difaaca, waxa la idinka doonayaa amaanta la idinku amaanayo ee annaguna aynu idinku ognahay in halkaa aad ka sii wadaan. annagu ka dowlad hoose ahaan waxaanu idiin awoodi karnaa inaanu laba macallin idiin karayno oo xeradiina wax idinku dhiga, weliba xagga luqadaha iyo kombiyuutarka. maanta waa maalin weyn, waa maalin aynu u dabaaltegayno 27 guuradii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddada 27 sano ah soo maray marxalado fara badan oo maalinba meel ay gaadhaysay. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.